بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عبد الحميد داهر محمد. halkan maanta waxaan ku qabanayaa kilib aan doonayaa kula hadla bulshooyinka SSC gudaha iyo dibadba kuwaas oo 4 saac ugu dambeeyay goobaha meelaha miidiyaha ah iyo isgaarsiinta isku dhaafsanaya hadallo dareenkooda inaan insha Allah ka jawaabo xaqayaan u leeyahay maadaama aan ahay xildhibaan yaga metelaya waxa dhacday in laba maxaabiistii cadawgii nabadiidka ah Soomaaliland kamid la sii daayo laguna wareejiyo hay'ad caalami ah arrinkaas waxa ka ficiliyay bulshooyinka SSC sida aan dareemayna kuma aysan qancin raallina kuma aha marka waxaan doonayaa inaan aniguna dareenka ay qabaan aan la qaybsado iyo qaabkii waxa ay u dhaceen aanu iftiimiyo horta marka hore adduunyadan aynu joogno waliba maamulada iyo dawladuhu waxay ku shaqeeyaan interest markay wax bixinayaan bedelkeedu waa maxay waxa xaqiiqo ah cadawgii halkan inta badan joogay ee xasuuqa badan u geysay shacabweynaha SSC ee qixiyay ee burburiyay in gacanta uu ugu jiro maxaabiis aan tiro badnayn oo ka soo jeeda deegaanadan isla markaana ah nafurayaal u dagaalamayay dhulkeena 6 February markii ay xabadu bilaabatay cadawgu wuxuu qabtay maxaabiis aan badnayn oo ay ku jiraan dad xanuunsanaya oo dhibirka ah dad reer baadiye ah oo meelaha daabiyadaha ku socday waxayna ku sheegeen maxaabiis dagaal kuwii dhaawac ahaa waxaanu ognahay inaysan helin daryeel isla markaana 6 bilood ama 8 bilood ama 7 bilood sida ay u kala dambeeyeen ma aragtay aysan daryeel u helin aan loo ogolayn in loo fasaxo dadka qaraabada ah ee cidii qaraabo kale waqooyi ama Hargeysa ama Burco joogta markay u tagaan aan loo ogolayn sida daraadeed anigu oo xildhibaan Cabdixamiid Daahir Maxamed aad waxaan u jeclaa marka la sii deynayo maxbuus cadawga laga qabtay oo laga yaabay inuu yahay kii dadkan dhibaatada inta lagu geystay in bedelkeeda la helo oo marka ay ugu yar tahay maxbuus dhaawac culus qabo oo ka soo jeeda SSC ama hiil walaal oo jeel ku jira lagu bedelo ma aysan dhicin aniga shakhsi ahaan ka mas'uuliyad ahaan ima aysan cutubin talaabadaasu dareenkaasna sida xaqiiqda rasmiga ah aad ayaan garanaysaa uu nafsiyan aniga ii bedelay waayo qof diiday inaad adigu aragto dhaawacyadaadii in marka dhaawacaagii uu isagoo serious oo la hayo marka la damco in la daaweeyo 3F lagu qaadayo iska daa in la arke in dhaawiciisa si fudud loogu sii daayo xaqiiqdii wax loo bogo ma aha hay'adda caalamiga ICRC ee gacanta loo geliyay inay soo daaweeyaan kuna wareejiyaan dadkoodii qudheedu dadkii jeelka boqday ka mid ahayd dadkaas oo aan 1 iyo 2 iyo 3 ba ahayn dhaawacyada culus soo gaareen way aragtay laakiin boolisiga u yaala nimanka cadawga waxa weeye in qofka ay gacan ku qabtaan aysan sii deynin kuna degdegin inagu waxaan u arkaa ka shakhsi ahaan ayadoo hadalkan uu ku socdo golaha fulinta u sareeya deegaankan in lagu degdegay talaabada la qaaday meeshana aysan ku jirin sababta oo ah dadkii xaqoodirka SSC ee u halgamaya dalkan waxaanu ognahay kuwa badan oo dhaawac inay xiran yihiin loonana macaamilay si aan wanaagsanayn taas intaasan kaga baxayaa talabaad cadawgu mar walba oo aynu la kulanno hadduu maxaabiis qabto ama gaadiid dagaal uu soo bandhigaa isagoo oo moralka dadkiisa ku hagaajisanaya caalamkana wax tusaya maxaa diiday inagoo 3 guuto oo ka tirsan cadawgeena xasuuqaya gacanta ku hayna inagoo maraafiicdi lagu xasuuqayay dalkeena gacanta ku hayna in loo soo bandhigo dadweynaha oo la tuso shacabkeenu sida sharafta leh ciidankeena sharafta leh uu talaabo u qaaday iyo jabka soo gaaray cadawga caalamkana aynu tusno hubkii leenagu gumaadayay iyo noocyada uu yahay iyo dawladaha bixiyay ee war crime kan ka qayb qaatay waxa halkan dhacay war crime xaqiiqda marka laga hadlo war crime weeye in baaritaan hubkan lagu sameeyay ahayd cid rasaas siin jirtay dawladaha bixiyay waxay muuqataa taasuna mas'uuliyadaas in ayna meesha ka maqan tahay oo muddo dheer
aan qalabkii faraha badnaa ee gacanteena soo galay aan la soo bandhigin taas intaasaan kaga gudbayaa shacab weynaha SSC fariin baan u dirayaa fariintan waa fariin muhiim ah 33 sano waxaan u oomanayn inaynu helno maamul inagu aanu leenahay waqti badan baynu himilada iyo riyada qabnay ilaahay baa inoo suurtageliyay maanta waxaan u baahannahay inaynu ilaashano dhinacyada iska taagno isu samirno inuu dul qaadanno waxa weeye sida sharciga ah ama systemka caadiga adduunyada ka jira golaha dhexe ama baarlamaanku wuxuu metelaa shacabkiisa dareenka shacabka iyo xukuumadda sare ayuu u dhaxeeyaa wixii bulshooy aad dareen qabtaan waxa jira golo dhexe oo idinkeedii adeegaya isla markaana dareenkiina shakhsi ahaaneed iyo ka guud ahaaneed iyo ka daleedba turjumaya in markaa waxa loo baahan yahay markii aad aragtaan wax dhaliil ah aad sugtaan xukuumadda iyo baarlamaankuba waxa ay ka yeelayaan oo aynu ka baxno wixii hore ee foodo ahaa oo markiiba qof walba social media waxa uu doono ku qorayo la iskuna tixgeliyo hadalkaygu waan dheereeyay waxaan leeyahay aynu xajisano ilaahay baa subxaanahu wa ta'ala inay siiyay guushaas degdega ah waxa loo baahan yahay inaynu ilaashano magaalo madaxda Laascaanood oo ah hadda magaalo madaxda SSC Khaatumo waxa loo baahan yahay shacab weynaha ku nool inay hoggaansamaan maamulkooda lagama ogola magaaladan inay noqoto magaalo hub ka dhacayo magaalo gaadiid dagaal dhex marayo waxa loo baahan yahay magaalo la jaan qaada caalamka inay noqoto insha Allah oo bilicdeeda iyo nabadgelyadeeda lagu soo hirto sida daraadeed laga bilaabo maanta oo ay tahay 13 September lama aqbali karo lamana soo dhaweyn karo lana yeeri maayo in Laascaanood qalab iyo hub la dhex maro ama la rido si caalamku inagu soo hirto wayna noqotaa meel nabadgelyo ah laga bilaabo maanta aynu ka shaqeyno inaynu beerno dhir oo magaalada la qurxiyo in la nadiifiyo in burburkii hadhaadigii cadow ka tagay meesha laga saaro saasaan idin rajaynaya inaad bulsho weyntuna insha Allah way qaadan doonto waxaan ku gabagabeynayaa hadalkayga waxaan u mahadcelinayaa walaalahayaga hiil walaal harti anigu horey baan uga hadlay bishii March hadalkii aan duubay waxa kamid ahayd Somaliland jamhadda SNM ee Somaliland waxa isu keenay waa interest iyo siyaasad iyo dhaqaale hartina waxa isu keenay waa wada dhalasho sida daraadeed dhulka iyo dhaqanka iyo dhiig wanaga dhaxeeya aad baad u mahadsantii qurba joogta harti iyo kuwa dhiigga u shubay iyo kuwa u dhintay iyo kuwa niyad ahaan taageersanaa way bogaadinaynaa sidoo oo kale waxaan halkan hambalyo uga dirayaa gudidii 33 ahayd ee ay kataliska SSC bishii January uu magacaabay jaamac Garaad Ismaaciil oo aan oran karo waa gudida Ilaahay baa mahad leh inay gaarsiisay guushan maanta aynu joogno oo anigu aan kamid ahaa waxaan leeyahay dadka deegaanka yeynaan ilaawin oo yeena noqon farda koorihii laga rogay waa inay agteena maamuus iyo dhiirigelin ba ay ku yeeshaan